هانتا هرودينا دي ميدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan u mahadcelinayaa marka ugu horeysa guddigii xeeroosaadka ee ka soo shaqeeyay muddana ku howlanaa in uu wax ka bedel ku sameeyo xeeroosaadka sideeda ujeedada keentay in xeeroosaadka la furo waa ka wada dheregsanahay in la helo attendance-ga xilli sax ah oo attendance-ga inuu aqalka helo ana waxaan soo jeedin lahaa marba haddii loo furay sidii loo kontrooli lahaa maqnaanta badan ee xubnaha aqalka ama attendance-ga waxaan soo jeedin lahaa gudoomiye wax badan aan xeeroosaad ka doodaynay anoo qaba in sidii hore lagu soo celiyo inta aan weyn lahayn awoodaheena qaar waa in awoodeena si ay u jirto aan soo celinaa xeeroosaadkeena hore kaliya meelaha aniga aan isleeyahay ha laga taabto ay tahay attendance-ga qodobka attendance-ga ka hadlaya iyo maqnaanta sidii lagu xadidi lahaa oo kooramkaas aan loo weyn lahayn in lagu soo ururiyo maantana guddiga iyagoo mahadsan ay noo soo ururiyaan la keeno si attendance-giina loogu shaqeeyo waxa kaloo iyadana aan soo jeedinayaa maalmaha aqalka uu shaqaynayo in maalmihii ay soo jeediyeen guddiga la qaato oo ah axadda iyo talaadada iyo arbacada saa u malaynaya inay saas ahayd marka waxaan soo jeedinayaa attendance-gaas in la soo ururiyo oo naloo soo celiyo oo intii hadda la soo jeediyey sanatarada dib loogu soo celiyo loo codeeyo qodobadaas ay hirgalaan iyo in maxay ahayd maalmaha aqalka intaas in laga taabto inta kalena aan isugu soo noqono sidii sanataradii badnaa ay soo jeediyeen markuu dastuurku soo gabagaboobo waa mahadsantiin